قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. walaalayaal meel walbo aad daafaha dunida naga daawanaysa waxaad nagala socotaan barnaamijkii aynu ugu talagalnay bisha ramadaan ee aan la noolayn axaadiistii nabigeena maxamed ah oo aan ku maaratay isdul istaajinaynay axaadiistii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ee loogu talagalay aan ugu talagalnay bisha ramadaan inuu qofka muslimka ah ka faa'iidaysto. xadiiska naga ugu horeeyo ee aan kusoo qaadano min xadiisi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. هذا الحديث الشريف حديث كأولا ليال حديث النبي صلى الله عليه وسلامه عليه وكسورنا يوم صحابي جليل كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصير بدامني أبي هريرة يعد ويهي يقفك ويهي oo ah saxaabi jaliil ah nabigeena xadiis fara badan ka soo naqliyay bal kutubta inta badan lagu arko abi hurayra islaamkana muddo 5 sano iyo maaratay dhowr bilood baa lagu sheegaa inuu islaamnimada dhan ku sugnaa maca dalika kaana wuxuu dadka ugu maaratay raawinta badan xadiista asaga iyo maaratay saxaabi baa maaratay la tilmaama. marka saxaabigan jaliilka radiyallahu ta'ala anhu ayaa nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam ka soo warinayo qaala marka nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay haqqul muslimi ala al muslimi khams: xaqa qofka muslimka ah qofka kale walaalkii uu ku leeyahay waa 5 xuquuqda fara badan tahay laakiin intaas xadiiska hada uu tilmaamaya waxa kamid ah raddu salaam. markuu qofka walaalka ku salaamo ee assalaamu alaykum uu ku yiraahdo inaad salaanta ka radis waa min xuquuq al-islaam dadka xuquuqda muslimiinta ka dhaxaysa way. bal ilaahi tabaaraka wa ta'ala waxa uu leeyahay wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. hadii la idin salaamo oo assalaamu alaykum la idin yiraahdo qofka inuu ka radiyo حقه قف كله كله حتى إنه سلامه ضد مسلمين ولا مسلمين وحركة إصدام رأيه. بل نبينا عليه الصلاة والسلام حديث قال حقولها: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ورما إذن شيئا هدات سميسان أزجعلان إنسان مركز النبي بلا يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري أفشوا السلام بينكم. سلامة نحدي إنكم في دي أو حتى سلامتان متك أتقانان يمتك أن أقول حقيقة سلامته وحكاية محبة هي مودة بين المسلمين وبين الإمارتين أخوة ذاتك ولا الله ولا لماذا كده حيثه نحن ذو حكاية أنت سلام مركو أفكوا سلامه أصلا ولي بمارت وجهي سنو يهي لولا عدين يفرحت كم مغطو وتكفر حساب يقف مركو قرم مره ويكلا قد سنته markuu assalaamu alaykum asoo dhacdeena ku raado ma sha Allah ninkan waa islaama waa nin maarta aad u fiican laakiin qofkii intuu ku garan maro marka nabigeena sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam baa leenahayo qofka kale ee muslimka ah ee walaalkii xaq uu ku leeyahay waxay tahay inuu salaamo marka uu salaamana inuu ka celiyo marka raddu salaam waa inuu marka xaq waxa way koobaad raddu salaam hadii la salaamo inuu ka ajiibo bal waajib ay culimadu yiraahdaan qofka marka la salaamo inuu jawaab salaanta celiyo waajib ay ku tahay. haddii marka yaa xaqal iyo marselas ku salaamaya midka fadhiyo waxa salaam midka taagan midka socdana wuxuu salaamaya midka fadhiyo midka weyn midka yar buu salaamaya kan yar baa maarta weyn salaamayo saasa marka la sameynaya bal guriga markii la gelayo in ahlu beedka lagu salaamo assalaamu alaykum saasa ku fiican. fakadalika xaqa qofka kale xaqa uu ku leeyahay waxay tahay inuu qofka walaalkii walaal soo booqdo ciyaadul mariid in la soo booqdo bil haqiiqa arintaas aad baan maartay laga gaabiyay qofka wuxuu ku soo salaamaa qaraabo iyo reeqan sax iyo reeq qurac iyo reehbel ayadoo ay tahay qaraabo xiriiri iyo wanaag ay tahay laakiin ilaahay dartii inaad qofka u soo booqatid. xadiis waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam nooga sheekay reeban Israa'iila oo maaragtay socday oo walaalkii oo maaragtay tuulo kala deganaa ayuu maaragtay soo salaamayay فأرس إلهي سبحانه وتعالى وددي وحو دغ ملك marka wuxuu ku ilaahay la turiid xagee socota
فأرسل الله إلى إمارة إلى مدرجته ملكا ملك يبقى حليه حاجة وسعتها مركز سير أخا لي ولا لك وتريد أن كنوا وحدنا يا مراد ميات كلا مايا غير أنني أحببته في الله إلهي الدرتي يجعل إلهي تبارك وتعالى حقي سومارة ورجاء وقبه كريا أصعد أبويري بشارة سويد أنه حنا مرق إلهي صدري أو مارة كوب بشارين أيوه إلهي إنه كجعراضي مركز قفك ولالك قفك كلا مسلم كولالكية وحويان إنه صوب بغضه خاصة ولا يقفك مركو حنوسيه الله تغو والله آد بأفر حياة النبي أنا وصوب وقنجل صلوات ربي وسلام عليه بل مركو النفبح يا أبو النبي قلت جريد وعد قرنا سويل يرى يهودية والنفبح أيو حبيبك أن محمد صلوات ربي وسلامه عليه قروا يسوسوا قلي أبيه مركز عونك نبت أبيه بساريه واللحظات قدام به مركز النبي وحكولها صلوات ربي وسلام عليه قل وحتى لا إله إلا الله ويلك يرى أبيه بأغي مركو أبيه أغي وفيريي بأبيه حكولي أضع أبا القاسم وحال أضع أبا القاسم ومقعيد رسول كان محمد صلى ربي وسلام عليه كمد أهايين مركز ويلك يرى التوحيد كي شهادتين رواقي نبي هو فرحي إلهي بانا ما اسكاله ويلي كبد بادي النار مركو وحاول قفك إلا أطغو أو صوب بوقضو أو إلهي درتي ولا صوب بوقضو آد قيمة بدنتها ولا ليال حقوق أن اسكولنا وحكم إذا قفك كلو كقول لي هاي قفك مركو دينته إن جنازة الراع جنازة ولا ليال النبي كان يقول نوشة صلوات ربي وسلام عليه قيراطين أما قيراطان إنه قفك هدو وهلا قيراط محاله ولو صحابة النبي يسوي دين ومثل بورت أحد كله قفك مركز صلاة أمد لتو كذاي جنازة قفك كنت كذا له قيراط هل قيراط بوليه أو أجره وهل بور أجره قفكي انتو كنتو كذا هذا نرى جنازتي قيراط وحوليه لما قيراط او وليبا النبي كان كنت له صلاه ربي اجرك بورت احد ودغنسا بورت احد النبي ولا بورنا جعل انكن ان جعل الله سي او تيسنتها marka aragteen magaalada Madiina cid tagta garan karto waa buur saas maartay u teedsan magaalada Madiina tulmana way ku taala waxaan meesha ka dhacay dagaalkii Uhud sidoo kale walaal qofka walaalkii markuu u yeero inuu ajiibo waxa qad kullu xaq kale isku leen hawi haduu walaalka ku azuumo ama warin ku yeero inaad ka ajiibtid ayaduna وحقوق ذا لا يسكول ليه إيه وتشميت العاطس قفك مركو هندسوده إيه وهندس يراهده إن ما عرفتي الحمد لله مركو يراهده إلا يراهده يرحمك الله هدي مركو كان نهي الحمد لله كان كلام حلو هاي مركو كيدا الحمد لله قفك مقل يرحمك الله أما يرحمكم الله كي كره إيه مركو هندسوده حلو هاي يهديكم الله ويصلح بالكم والدعاء هذا قيمة بدن أي تهاي هدان معنى إنه قفك مركو هندي صحيح الحمد لله إله ما صنبو يري هندي صدق كقول الله عند ربي تبارك وتعالى كلك يعني كي كلا يرحمك الله أم يرحمكم الله الله إذن حريست أصيب جحر يهديكم الله إله إذن يهديك الله الله كهنوني ويصلح بالك أرمى هذا يمار دروب هذا وحن دامنا يدنت على الله تبارك وتعالى سكوا يدوه يما أمراتك الله كل سالوي قفك مركا انت لا يري مدعك وين باجرت ودعاء وين حقيقه وادو قيمه ولا ريال هذو قف مركا قف قاله وكوا هندسوده ما حد لهدهي ويراد الحمد لله ما حد لهدهي يهديكم الله ولا اسغا بل ما انت ما حد دعوي قفك مركو هندسوده هندس يراده انه لا سوري سورة النبي مركا ان لغا فغادي با دريميسا سوري اما waxaan daawanay maalmo sheekh ka sheekeenayo qisad iga yaabisay wali waa sheekh Soomaaliyeed oo leh meel baa soo galay maqaaxi ah nin oday ah oo wali magaalada ragga professor lagu tilmaamo yiri ayuu kamid ahaa wuxuu yiri wuu hindisooday sorry wuu yiri markaas aan hadana mar hindisooday yiri markaas yiri sorry hadana masdaxad hindisooday sorry intaas marka waa isceli waa yiri markaas aan la hadlay gacanta walaal miyaadan garanaynin waxa la yiraahdo marka qofka hindisooday وان كرنا دواني يريبيرو سوري اغيرها اللغضة مايا نبينا تانا مبارين إله بان كهو داري ما كرنا يساوير وح عاد نقشه ولا انت بدن الحمد لله وان مقلي لكن انت بدن حيري ما دام ان ميلا ان جوغي اي مارت قربها كسو كوري اي ان مارت وقت كسو قاتي ان كلمه انا استعمال انو كره لي جلا دكاس هندسيدي اي مارت دواقي iga soo baxay markaas yiri maya waxbana raali geline xabiibkeena salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu faray ay meesha ugu sheegay professor fara badan iyo dad fara badan oo hadda la daawano waxa laga yaabaa inay alxamdulillah kaliya ku ekaadaan
walaalayaal sunnada nabigeena salawaatu rabbi wasalamu aleyh waxay ahayd ama iba alxamdulillah dhihin ama excuse me ama sorry inuu qofka yidhahdo laga yaaba sunnada xabiibkeena salawaatu rabbi wasalamu aleyh waxay ahayd markuu qofka hindhisoodo inuu yidhaahdo alxamdu lilah walaalayaal ilahay baa mahad iska leh waxaan ihayay ilahay iga soo saaray kakan loogu jawaabo yarxamuka allah yahdikum allah wayuslix baalakum isla xadiiskii koowaad ba halkaa noogu dhammaaday xadiiska labaad wa asagana waxaa werinaya abi hurayra radi allahu tacala canhu ardah ana rasuula اllahi sal ly slam qaala man shahida aljanazata faxataa yusallaa calayha falahu qiraad waman shahidaha xataa tudfana falahu qiraطaan qiila wama alqiraطaani qaala mithlu jabalayn alcadiimayni muttafaqu calayh waa isla hadalkii hadda sheegaynay oo xadiiskii baa noo yimid abi hurayra radi allahu tacala canhu ardah allah ka raal noqdee ana rasuula اllahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu yidhi man shahida aljanaazata qofkii ahaada goobjoog janaazo oo xaadir ahaada xataa yusallaa caleyh ilaa looga tukado oo la tukado maarata ka qayb qaato wey falahu qiraad wuxuu leeyahay qiraad waman shahidahaa qofkii goobjoog ahaada xataa oo la tukaday xataa tudfana ilaa laga aasaayo falahu qiraطaan wuxuu leeyahay laba qiraad saxaabada marka nabigeena salawaatu rabbi wasalam waxay weydiiyeen qiila waxay dhaheen wama alqiraطaan qiraadaanka maxaa laga wadaa nabigeena baa u balbalaariyay wuxuu yidhi mithlu jabalayni waa laba buuro oo maaragtay weliba waaweyn marka culamaka lasii jirciy waxaa la yihahdaa waxaa laga wadaa mugga buurta uxud ayaa lagu tilmaama walaalayaal xadiiskanaga kale ayaan ugu talagalna duruustii ramadaanka abi hurayra ayaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamuhu aleyh ka warinaayo qaala marka nabigeena alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi nacam abi hurayra wuxuu yidhi maa caaba nabiyu sal ly sl nabiga alayh salaatu wasalaam ma ceebayn weligii nebi maxamed alayh salaatu wasalaam ma ceebeynin dacaaman qad weligii nebi maxamed alayh salaatu wasalaam cunto loo keenay wax kama sheegin in ishtahaahu akalahu hadduu u baahdo cuntada wuu cunayay wain karihahu tarakahu haddii cuntadaas uu ka helinna uu ka tegay haddii cuno lagu keeno waxaa fiican qofka inuu cunadii alxamdulilah yihahdo qayb baan haysan lakin inaad cuntada wax ka sheegtid islaamka raalli kama aha mana ogola nabigeena da'bigiisii iyo sunadiisii ma ahayn xadiiskanaga kale walaalayaal waa min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardah ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulkeena moxamed alayh الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yihi xujibat الnaaru bالshahawaati وxujibat الjanaةu bاlmakaarihi mutafaq calayh waa xadiis cadiima wallahi alcadiim rasuulkeena alayh الsalaatu wasalam wuxuu leeyahy xujibat الnaaru naarta waxaa lagu xijaabay oo lagu dul wareejiyey oo maar sida garaangirta saa loogu dul maaragtay koobaabay bishahawaati shahwada leanna bil-adanka waa naf iyo shahwa maaragtay iyo naf baa lagu imtixaanaya shahwadiisi marka naartiiba waxaa lagu dul wareejiyey waxaa weye shahawaadka weeyaan waxujibat اljannatu jannadiina waxaa lagu dul wareejiyey oo lagu xijaabay bilmakaari wax alla nafta ka rahays maxaa laga wadaa marka daas sii balbalaarin oo nabigeena salawatu rabbi wasalam inoo balbalaariyey lianna naftu mar walba amaaratun bisu ina nafsa la amaaratun bisu xumaan bay faraysaa tusaale ahaan inuu qofka maaratay indhihiis wax kasta iska daawadaan tusaale ahaan qofka inuu been iska yidhaahdo tusaale ahaan inuu hawadiis iska raacay shahwadiisii waxaasoo dhan hadduu la yimaado yaqac muxuu ku dhacaya naartiiba ku dhacayaa wey leanna maxaa yeelay waxaa ku dul wareegeysan wax naartii dusheeda ahaado shahawaadki o dhan buu iskaga maaratay iska daaqayaa wey qofkana waxaa loo sameeyey soodin iyo xima soodinta ilahay ina maxaarimta lagu dhicin wey oo ilahay subxana wa tacaala maxaarimtiisa laga fogaado waxujibat iljanna jannadii waxaa lagu xijaaba oo lagu dul wareejiyey bilmakaarih wax allaalo naftu karhayso kun calaa cilmi marka naftaada wax allaale waxay karahdo oo tusaale ahaan in salaadis wa weysada la sameeyo oo lo maaratay biyihii ama ha qabobanaadaan ama maarata lasoo kaco naftu ma jecla in qur-aan badan la akriyo naftu ma jecla in maanta dhan xanta iyo xumaanta laga fogaado naftu ma jecla way karhaysaa wax walboo naftu karahdo khayrkeedaa ku jira ogsoono wey khayrkeedaa ku jira ogsoono weya marka taas waxaan ka fahmaynaa wax walboo naftaada iyo shahwadaada kugu qaadaayo ogsoono waddo xun bay ku saarayaan dad laba wado wey fariiqun fi ljanna iyo fariiqun fi saciir marka wadadii jannada waxa naftu ay karhaysa wey wadadii naarta waxay naftu jeceshaa wey marka adaa lagaa rabaa labada haywey kaad qaadi lahayd wey nacam xadiiskanaga walaalayaal ugu dambeeyo aan xalaqadan kusoo gebagabeynayno waxa uu ku tacalluqaa salaada jumcada aljumca abi hurayra nabigeena alayh salaatu wasalaam ka warinayo
adaab bay leedahay. adaabteeda waxaa ka mid a qofka inuusan iska hadlin oo maaragtay uu dhaqaaqiisa mid fara badan uusan ahaanin. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaad ku tira idaa qulta lisaaxibika saaxiibkaa salaadii khudbada kula tukanaya haddaad ku tidhaahdid yowma aljumuca maalinka jumcada ansit aamus mid hadlayo oo daldalmayd aragta warnaga aamus baa tiri walimaamu imaamkiina yakhdubu uu khudbeynayo imaamkii oo khudbada u taagan baad qof aragta warnaga aamus baa tiri faqad lagawta adigii baaba laqwi ku dhacayba adigii baa gef ku dhacay. marka waxaa la rabaa inaad afkaada xirata. cid badan waxaa arkaysaa maalinta jumcaha tusbax qawda ku hayo qaybe ka dambe haddana waxaa soo baxday inay taleefanadiiba saas taleefanadi waa dhalinyaro weli badan yihiin inuu qofkii maarata imaamkii khudbeynayo inuu maarata taleefonkaas uu maaratay dul saaran yahay oo iska maaratay iska fiirfiirinayo ama facebook ahaataya ama meelihii kale ahaataya waxaasoo dhan qofka maarata udan yahaaba ka yeelanayo. nacam udan yahaaba ka yeelanayo. marka waxaa loo baahan yahay qofka marba hadduu salaad jimcaha yimid inuu weliba kusoo horumaraa rabaa. qofka mid baa la siinaya geel mid baa loo qaadanaya midka ugu dambe kunbuu helaya. marka in lasoo horumaro weli maalinkaa la issoo nadiifiyo qofka inuu soo qabaysto oo baraafuunka iyo catarka iyo wuxuu awoodi karaayo uu issoo mariyo. jimca goray bilaabataa marka waa jimcada waxay bilaabataa galabka salaada maqrib marka la tukado. salaada maqrib marka la tukado oo maalinka khamiista ah wixii ka dambeeyo maqribka waa jimco wey ilaa laga gaarayo maqrib kale ee maalinka jumcada ay tahay intaasaa la yidhahdaa. qofka marka inuu habeenkii hadduu xitaa qabaysto falaa ba'sa biha wax ku jaban ma leh. hadduu qofka habeenkii sii qabaysto oo dharkiisa sii diyaarsado subaxna khamiiskiisa u gashto waxbana kuma jabna. marka subaxna qofka waxaa loo bahan inuu asagoo udgoon weliba dharkiisa hadduu bedeli karo inuu bedelo. ma waajiba marka inuu qofka asagoo u qabaysto? waajib ma aha. maxaa loo yeela marka? sababta waxay ahayd saxaabatu kiram waxay dad shaqaysto oo maaragtay laga yaabo suuqi iyo inay ku dhex jiraan iyo beerihii ka shaqeynayan qofkoo dhiidayo in maalinkaa la isku yimid ay dadka jamceen in la karaho oo maarata riixdiisii iyo waxsoo kasoo kamkamayay inay ummadda dhib u geystaa la dana. laakiin qofka hadduu nadaafadiisa aad u fiicnayd marka horeba qabayskiisana ama xaloo kale ama shaloo kale u qabaystay waktina uusan uhaynin waxbana kuma jabna walaalayaal waxbana kuma jabna. xadiiskaasaan jeclaa inaan maaragtay oga baxo walow xadiis kale aad u yar uu meeshaan iisii muuqdo oo min axaadiistii laga soo warinayey nabigeena alayhi salatu salam ka mid yahay uu kasoo warinaya saxaabiga jaliilka ahaa abi hurayra radi allahu tacala canhu wa ardaa. bal aan ku darna kan insha allahu tacaala waa xadiis aad u kooban. nabi wuxuu yihi waylun lilacqaabi min annaar waadi naareed wuxuu ku dureersamay ama ku dureersamay jamc waa cirbihoo la jamciyo way caqaabta naar bay ku dhacayaan. maxay tahay bisababtan waxay tahay dadkii oo markay weysaysanayaan aana weysadii dhamaystiren walaalayaal. salaada waxa lagu galo oo ugu horeyso waa weyse qaadashada wey qofka dahaarada ka mid tahay. marka waxaa arkaysaa markay weysada lugihii qaybo ka banaan tahay oo aanan u dhamaystirnayn falijli hada waxaa loo baahan yahay qof walbo oo weyse qaadan inuu weysadiis ahaato midtaan. waxaad ogaataa weyse qaadashadu markaad gacmahaada dhaqaysid wixii gacmahaada kusoo qabatay baa lagaa dhaqaya oo dunuub ahayd. wejiga markaad dhaqays wejiga waxaad ku aragtay waxaas oo junuub baa ku socoto. marka si adoo murtaaxa oo weysadaad ay ku dhamaystiran tahay yaa maarata fiican inuu qofka salaada galo oo ilaahay subxaanahu watacala uu ka codsado markuu weysada dhameeyo ee inuu salaadaasna uu ka aqbalo. ilahi subxana wa tacala waxaan rajeynayaa inuu maarata noo barakeeyo xalaqaadka khayriga aynu wadno. wasali allahuma waslama calaa sayidina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.